ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland iyo ciidamada gurmadka ee booliska ayaa saaka hawlgal ka fuliyay 16 goobood oo kamid ah deegaanada degmada Ceelafweyn ee galbeedka gobolka Sanaag oo muddooyinkii ugu dambeeyay dagaal sokeeye ay ku dhaxmareen laba beelood oo walaalo ah. Hawlgaladan waxaa hogaaminayay amaanduulaha labaad ee ciidanka qaranka sareeye guuta Ceelafweyn Barhe Goosood, taliyaha ciidanka gurmadka ee booliska gaashaanle sare Cabdi Axmed Tiir iyo taliyaha qaybta saddexaad ee ciidanka qaranka Faysal Cabdi Bootaan. waxa kale oo kormeerkan ku wehelinaya saraakiil sarsare oo ka tirsan labada ciidan. sidoo kale waxa ciidamada barbar socday wafdi uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed oo ay weheliyaan barasabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalintiin Baro iyo wasiirada wasaaradda deegaanka, shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada, ciyaaraha, kalluumaysiga, diinta iyo waqaafta iyo wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta. sidoo kale waxa qayb ka ahaa wafdigan Cabdiraxmaan Cali Faarax iyo Axmed Yuusuf Yaasiin oo hore madaxweyne ku-xigeen uga soo noqday Jamhuuriyadda Somaliland. ujeedooyinka hawlgalada ciidamada iyo kormeerka wasiirada ayaa daba socday hubinta in la fuliyay go'aamadii nabadeed ee ka soo baxay shirka nabadeed ee loo fadhiyo degmada Ceelafweyn. sidoo kale waxa ay waafaqsan yihiin hawlgalada ciidamada qaranka iyo booliska ay ka fuliyeen deegaanadaas kala duwan qodobada 123 iyo 124 ee dastuurka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. ugu horeyn waxa qaar ka mid ah goobahaas kala hadlay dadkii ay la kulmeen warasabka gobolka Sanaag iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland. waanu idin aragnaayo qaliilaba ku haray meesha magaalada way camiraan jirtay berigii wadanku hagaagsanay nabad aha maanta waad aragtaa inta joogta waa dhibaatada ay leedahay colaad ay ka mid tahay waxa la idinka baahan yahay arintii meel wanaagsan bay maraysaa nabadda way xirmaysaa xoogii xukuumad iyo dad iyo culimo iyo madax dhaqameed waxaynu saareen arinta la soo afjaro ciday ka afjarmaysaana waa idinka ka koowa binaadmigu waxa qoray u baahay waxa weeye inuu ku noolaado waa nabad. haweenka halkan jooga iyo caruurtana waxay u baahan tahay nabad. ila ragoona waxaad ku ciyaaraysan waa caruurtiina nabadeedii khasaaro badan baa ka dhacay colaadan labadiina qoys walaalaha maanta meel fiican bay maraysaa. waxaynu u baahannahay in nabadgelyada qof waliba goonidiisa uga shaqeeyo, deegaan waliba goonidiisa uga shaqeeyo. deegaamadana ku kala maqan tihiin ee faraha badan leh iniba meel u goosantay waxay u baahan tahay in dadkii uu wada noolaado, inuu dadku wada dego. maatada iyo caruurta waxa loo baahayay in dhibta laga daayo. ugu dambeyntiina waxa hadalka isu daba-maray wasiirada wasaaradaha deegaanka iyo diinta iyo waqaafta iyo weliba Cabdiraxmaan Cali Faarax iyo Axmed Yuusuf Yaasiin oo dadkii ay la hadlayeen halkaas uga soo jeediyay hadallo isugu jira dardaaran, dhiirigelin iyo farhiin ay u direen sidii looga wada shaqayn lahaa arrimaha nabadeynta labada beelood ee laga wada gudaha magaalada Ceelafweyn. nabadgelyada halka la xirayo maanta ina aqbashaan ina ku shaqeysaan ina qofka allaaliyo qofkii dumarkuna oo ku weydin maqlaya qof allaaliyo qofkii dawladda ka hor yimaada ee askarta iyo nabadgelyada ka hor yimaada bartaas ayadana ay kaga taala hadal kala male dhul ula dhici maayo la isu tirsan maayo hal bartaas wallahi laga wada tooganay meesha wada degantiina waa ku qasbantiina wada deganaataan dhulka dhiiga lagu daadiyay haddaan laga toobad keenin oo ilaahay loo laabanin oo istighfar la horeeyo uu toobada u aqbalay dhulkaas dhulka ahaan maayo nimcadaana hayn maysaan abaara soo marteen balaaya soo marteen dhibaatooyin uma soo marteen markii ilaahay roobka idin subayna weydikaas oo isku bilowdeen walaalayaal ilaahay loo noqdo subxaanahu wa ta'ala nafsiina u tura aakhirina u tura adduunyadana u tura waxaad yeelaysaan nabadgelyadu halka ta lagu nabadgelyada darada halkan taali inay idinka kaliya habar lama khusayso ma khusayso idinka kaliya Soomaaliland oo dhan bay khusaysaa. waxay culimada haayeen Ceelafweyn bay maanta joogaan, xeerbeegti waxay lahayn halkaas ay joogaan, madax wixii ay lahayn halkaas ay joogaan. hadday xabad damba jabto cidda jabisay guntaa la maraya tasmaan uu idin sheegaya taa ogaada soo sheega reerka dambe jabiya ciyaar loo soo bixin ciyaar loo iman. Axmed Mursal Askar Star TV Ceelafweyn.